ويسكع عيدنا ودعا لكن عيدنا بقول كيبا بقول ودتكو ذا أي لدرين أبيبو هل كان دحوا حمريا عيدا سوين دريسيدو دي هراء وعيدا بدي كارك هوية كارك وكودا بيان وحنا البوليس كنا ننقل مانين مان بعض ما صنت يا أحمد عبد الله هذا كمودبين البوليس ككتر سنة وحتى لي حاضر السي بيتنا وحنا نروح قضياش هو الحلية عبد الله يا أحمد أحمد ثير وحي سنة بوليس كصومر وين التيل يجا عمرك الله أو ديريو قضيا البيها لكن ركاهره إذا كوا الله تعطى وحنا عن حنا الركبة بجوجا waxaa meesha maraya ciidankii booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka nabadgelyada ciidanka lagu seexdo ciidanka la saaxiibka dumarka iyo caruurta iyo haweenka iyo la dagaalama kontrabanka iyo maxaan ku yiraahdaa daroogada iyo wax kasta oo dhaca waa ciidankii booliska jamhuuriyadda Soomaaliland niman dhalinyaro ah oo aad u qurux badan baa maraya aad madaxweyne mudanayaal askari bay koofiyadu ka hadhay loo qaado sharaf weyn bay u tahay qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland dhismaha ciidanka wax u qabashada ciidanka la socoshada ciidanka iyo sida ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar walba heeganka ugu yihiin dalkooda iyo dadkooda ee ay u shaqaynayaan soo dhawaada ciidanka biliiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa ciidan aad u tiro badan oo taliyooda iyo taliye ku-xigeenkooda iyo hoggaanadooda iyo saraakiishooda iyo dableydooda marka aad aragto aad soronayso hargeysiba waa ciidan mudane madaxweyne ninka odayga ah ee cutubkan hor socda raggii hore ayuu ka sii joogaa waa hawsa u jirkii dalkan ciidanka u soo ahaa ragga caynkaas iyo carruur badan bay ku koriyaan jaamacaday ubadkooda u galaan waxay habeenaya maalin u shaqeeyaan qarankooda waxay naftooda huraan dalkooda dad sharaf badan oo aan ku shaqaynin lacag ku shaqaynin laakiin waddaniyad ku shaqeeya kalsooni ku shaqeeya ciidanka biliiska jamhuuriyadda Soomaaliland dalkan meel fog baa laga keenay mar baa jirtay ciidanka la tababarayo dugsiga Mandheera cilmi rooble furre laba dameer buu u iibiyey oo biyaha u dhaamin jiray ciidanka dooxa looga soo dhaamin jiray halkan maanta fooqyada ah ee taliska guud meel yar oo xaafaday ahayd oo aad u khariban maantana dadka wax qabtay waxa ka mid ah Maxamed Saqali Dabagale hoolka uu dhisay iyo baarka uu dhisay iyo garoomada uu sameeyay ee uu ka tagay waxa weeye waxaanay taariikhdu ilaa weylin mar kastana ciidanka madaxweynaha jooga ayaa gacanta ku haya madaxweynaha jooga ayaa u heeliya madaxweynaha jooga ayaa ku tacba oo tacab badan geliya hawsowjar waa raggii hore salaam bixinooga waayahay waa maalintaad soronaysayo askari kaa dhiga lugta iyo gacantu sida ay isku raacaan seefta iyo koofiyadu sida ay isku xidhan yihiin ciidanka biliiska jamhuuriyadda Soomaaliland weliba ciidanku waa intii ku sugnayd caasimadda dalka iyo nawaaxigeeda gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland min Salal iyo Awdal iyo Gabiley iyo Hargeysa iyo gobolka Saaxil Berbera Togdheer sanaag ilaa Sool waxa weeye sidan ayaa looga dabaaldegayaa magaalada Boorama waxa ka socota xaflad tan la mid ah oo halka xubnihii golaha wasiirada ee salaanta la qaadanaya ay ka qayb galayaan madaxdii gobolka iyo kuwii degmada ay ka qayb galayaan magaalada Burco gudoomiye Ramaax iyo maamulkii gobolka iyo kuwii degmadu si habsami ay tababarkan u wadaan isna ka museexan waliba barasab Ramaax waa nin aad iyo aad u hawlkar ah socod badan oo cag fudud meel kasta iyo tuulo kastana gobolka Togdheer istaaga oo aan ka daalin hawsha magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil xaqii badda iyo dekadii Cali Diiriye Cali Yare iyo Maayir Cidin iyo raggii caynka ah way ku jiraan ma sha Allah tabarakallah ciidanka booliska Soomaaliland mudane madaxweyne wala hadda eeg kala shubnaanta iyo dhamaystirka iyo dhererka iyo quwadda ku jirta
askariga salaanta bixinaya kabitaano dhalinyaro ah ciidanka biliiska Somaliland ayuu ka tirsan yahay ciidanka biliiska Jamhuuriyadda Somaliland waxaa dalka ku soo kordhay ciidan dhalinyaro ah ciidan da'yar ciidan dhisan ciidan habaysan oo loo hagar baxay aad iyo aad baynu u soo dhaweynaynaa ciidanka biliiska Jamhuuriyadda Somaliland gaashaanle kale oo qurux badan oo isna salaanta sidii ay ahayd u bixinaya ciyaarsiiskooda iyo gaadhka ciyaarkoodana ay yihiin kuwo qurux badan waa ciidankii biliiska Jamhuuriyadda Somaliland mudane madaxweyne askarta dhisan ee quruxsan askarta habaysan ee aadka u la yaabka badan leh askarta labisan ee laga yaabo in 3 subaxnimo ee saaka ay diyaar u ahaayeen in ay xuskan ka soo qayb galaan inay ciyaarsiiskan diyaariyaan abaalkoodana dalka iyo dadka ayay ku leeyihiin waxaad nagala soconaysaan idaacadda Radio Hargeysa oo telefoonada gacanta laga dhageysto iyo raadiyaasha iyo gawaanidaba laga dhageysanayo telefishinka qaranka Somaliland iyo dhammaan telefishinada ku hadla afka Soomaaliga page-ka iyo YouTube-yada cid kasta oo iyana gudbinaysa waynu u bahad celinaynaa dhammaanba daawadayaal ka qaybgalayaal goob joogayaal xuska munaasabadda la soo noqoshada madaxbannaanida Somaliland sanad guurada 35aad ciidanka u hagar baxaya tumidda darabalka ee baamboyda waxa weeye ciidan iyaguna aad u gacan fudud ciidan habaysan oo wanaagsan ciidankii biliiska Jamhuuriyadda Somaliland waxa ciidankan iyana ku xigi doono oo isla ciidanka biliiska qayb ka ah ciidankii caanka ku ahaa liisanka keen lambarka bedel aawi cashuurtaadii gaadhigu sidooha waa ciidanka nabadgelyada wadooyinka taliye cidheere oo isagu ciidankaasi hoggaanka haysta iyo ciidankiisii shaarka caddaa ee taraafikada waa ciidamada iyaguna ay ugu naxdinta badan yihiin shil kasta oo dhaca way joogaan goob kasta oo dhimasho ka dhacdo way joogaan sharcigay u baadhaan way dadaalaan oo way ilaaliyaan waxaynu u ducaynaynaa sarkaalkii u dambeeyey ee ka geeriyooda ciidankan maxamed taratare ayuu ahaa oo nin caan ahaa ciidanka nabadgelyada wadooyinka Jamhuuriyadda Somaliland